السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خياري ميل كستو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqilaada ciyaaraha si waxaanu eegi doonaa wararka degdega wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha waxaanu inta badan diradda saari doonaa isku-aadka Champions League ee saddexaadka ayaa la sameeyay kooxdaada seexa iyayse ku beegantay wararkaasi warar kale sport ee waxaa soo kale eegi doonaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Arsenal oo qaatay diinta Islaamka Allahu Akbar iyo soo kale waxaanu eegi doonaa دور كمده نادياشيا aad mooda qaraha Yurub doonaya دور لاعب ka tirsan naadiga Manchester United waaki wararkeena ayaa kala socon doonta aska badelin imika channelka naga daawanaysid oo ciyaaraha latest tube soo kale muuqaalkan cusub ayaan ku eegi doonaa the latest sport news wow hadaan nagu cusubtahay subscribe noo saar hadaan naga midana like noo dhiraagileysan oo la saacibo اهلا وسهلا اصحابي ميل كاستو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena wararka degdeg ku eegi doono warku dambe ciyaaraha si waxaanu eegi doonaa isku-aadka Champions League qaybteeda saddexaadka ayaanu eegi doonaa hadii aanu eegno runtii waxaad moodeenayeen kooxooyin weyn ay runtii isku beegmeen saddex kamid ah Premier League ay ka ciyaaraan soo kale laba kamid waxay ka ciyaaraan La Liga Isbaanishka hal Jarman hal Portugiis iyo liga dabxan wararkaasi iyo warar kale ayaan eegi doonaa hadii aan ku bilowno kooxda kubadda cagta Chelsea ahna kooxda haysato horyaalkan Champions League ay wax ku beegsameen kooxda weyn ee Los Blancos ama Real Madrid runtii waa kulan derby runtii la wada sugaya inkastoo inahay in ciyaareedkii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Blues ku guuleysan ay reebeen naadiga Chelsea بس واحد مدريين لا يدوني إني كأرسلان كوضا كوبا عكتا تشيلسي أنت بدون واحد مودين كوحو أي ريبين أي كوجلستان تشامبيونز ليج هدي لا يبدو كوضا كوبا عكتا تشيلسي لا يريبو أيوه محقول أي كوضا كوبا عكتا لوس برانكوس أي كوجلستان كرات وصدا شيء سمين كبير تصيبه كوا كفالة كوبا عكتا سوكرت واحد مودين معناك كوضا سي توماس تشيلو آل سودوين كوضا بلوز أي كوبا من مركلة kooxda kubadda cagta Real Madrid wuxuu runtii kooxda Real waa koox weyn runtii waana kooxda ugu badan ee haysato koobkan imka loo tartamay Champions League in la ciyaarin waxay noo tahay samcad weyn waxaan ku dadaalaynaa in aan guul ka gaari doono kulankan la ciyaari doono kooxda kubadda cagta ee Los Blancos runtii lugta hore ayaa lagu ciyaari doonaa Stamford Bridge garoonka ay leedahay naadiga Chelsea halka lugta labaad lagu ciyaari doono garoonka weyn ee naadiga Real Madrid Santiago Bernabeu iskuadka kale hadii aanayna kooxda kubadda cagta Man City ahna kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League waxay ku beemeen naadiga Atletico Madrid runtii Atletico ayaa kooxdii reebtay naadiga Manchester United Man City ma argudi doontaa diraskooda cadowgooda Manchester United waa su'aal inta badan la isweydiinaya City ma laga yaabaa in ay u arguto naadiga Manchester United kulamada kale iskuadka diyaanino naadiga Villarreal waxay ku beeneen kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waana kulan kale derby runtii soo kale kooxda Liverpool ahna kooxda ninkaad moodaa in ay tahay kooxa looga baqayna ku guuleysan karaan Champions League waxay ku beegmeen naadiga Benfica koox ka dhisan dalka Portugal wararka kale aan helayno waxaa sheegeen in ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Arsenal Thomas Partey qaatay diinta Islaamka runtii waarin aad moodanaytay farcado in runtii maanta ay islaamay waana maalin jimcaha runtii inta badan dadka maalinta jimcada ayaa maalin runtii aad u weyn وانا مالين سيدا عيد او كليتا سيبا دادك مسلمين توماس بارتي مودا مانتا انو الهي سبحانه وتعالى اتوسي ودادا توسن وانا كسو بيري دينتين اسلامكا وحانو لينهاي توماس بارتي سودو وانا لاحق رونتي اد مودا اميكا انو يهي عيارتويدا وميمسان كوحدا كوبادا عكتا ارسنال وانا عياريهان وداشي دالكا غانا عياريهان توماس بارتي ايا كسو بيري كوحدا كوبادا عكتا ارسنال عاقايو كوحدا كوبادا عكتا اتلاتيكو ماريد كوح كارسان دالكا اسبانيشكا وانا عياريهان كا aad moodinu kamid hay ciyaartooyda u qaalsan ay soo gataan kooxda kubadda cagta The Gunners iminka maamulo macallin Mikel Arteta Arsenal ayaa iminka ku jirta kaalintii afraad iyagoo wali leh fursadooyin kale oo dahabiya aad moodinay kulamooyin kale ay baaqo yihiin inkastoo kulanka ugu dambeeyay ka badisay kooxda kubadda cagta The Reds wararka kale ugu dambeeyay siba anta suuqa kaliibsiga ciyaaraha ayaad moodeen ciyaaryahan Paul Pogba iyo Rashford ay doonayaan
inay ku biraan kooxda kubadda cagta PSG ahna koox qarsan dalka Faransiiska ciyaaryahan Pogba ayaa moodaa qandaraasku kula jiro naadiga United inuu dhacaya cagaagan hadduu dhamaado soo kale ciyaar Rashford ayaa moodaa qab ciyaareedkiisa United aysan u beegin jabahirta kooxda kubadda cagta United wuxuuna ka mid yahay 12 ciyaaryahan ay doonayso United inay iska diraan marka labadan ciyaaryahan ayaa moodaa inay doonayaan iminkase inay sii diyaarsayeen inay ku biraan naadiga PSG Sporting akhyaaray wanaagsan